wasaaradda xanaanada xoolaha dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in xayiraaddii laga qaaday xoolaha Soomaaliyeed ee loo dhoofin jiray dalka Sacuudiga. wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa dowladda federaalka Soomaaliya ayaa sheegay inay ahamiyad ay u leedahay dalka Soomaaliya arintan xilli markaasi soo dhow yahay mawsimka xajka. wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa xukuumadda federaalka Soomaaliya iyadoo gudanaysa waajibaadkeeda shaqo ee ku aadan barnaamijka xukuumadda oo uu ra'iisul wasaaraha ka yahay mudane xasan cali khayre gaar ahaan tubaha qaranka iyadoo ay wasaaraddu qayb ka tahay tubta dhaqaalaha ee xukuumaddu waxay u howlgashay fulinta halbeegyada saldhig u ah tubta dhaqaalaha ee ku aadan horumarinta xoolaha Soomaaliyeed iyo ka qaadida xayiraadda saaran dhoofka xoolaha ee loo dhoofiyo dalka boqortooyada Sacuudiga ee aan walaalanahay isla markaana loo helo suuqyo cusub oo loo iibgeeyo xoolaheena nool iyo waxa ka soo baxaba. wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya waxay ku guuleysatay in markii ugu horeysay diyaariso muddo dheer kadib istiraatiijiyad guud oo muddo 10 sano ah shaqaynaysa 2020 ilaa 2030 taasoo ay gacan naga siiyeen hay'adaha bangiga adduunka iyo hay'adda FAO si loogu horumariyo xoolaha Soomaaliyeed ee dhinacyada caafimaadka, daaqa, biyaha waraabka, horumarinta dhoofka xoolaha, hagaajinta iyo kobcinta caanaha, hilibka, maqaarka xoolaha, digaaga, calafka, shinnida iyo wixii la xiriira taasoo lagu soo gabagabeeyay dalka gudihiisa 17 iyo 19 bishan June intii u dhaxaysay 2019 waxaana dah furay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya goobjoogna ka ahaa madaxa xafiiska bangiga adduunka ee Soomaaliya iyo madaxa hay'adda FAO ee Soomaaliya EU xubno ka socday UN-ka iyo xubno ka socday deeq-bixiyaasha caalamka. wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa iyadoo gudanaysa waajibaadkeeda shaqo waxay u howlgashay in xayiraadda laga qaado xoolaha Soomaaliya ee aan u dhoofino dalka boqortooyada Sacuudiga iyadoo kaashanaysa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane xasan cali khayre xiriiro badan oo aan la sameynay wasaaradda dhiggeena ah ee dalka Sacuudiga kadib wafdi uu hogaaminayo ra'iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda oo ayna ka mid ahaayeen wasiirada xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa uu safar ku tegay dalka Sacuudiga bishii Febraayo ee sanadkan gudihiisa iyadoo si qoto dheer looga wada hadlay in xoolaha Soomaaliyeed laga qaado xayiraadda soo noqnoqota waxaana la isku afgartay in si wadajir ah labada dhinac ay uga wada shaqeeyaan si aanay xayiraaddaasi ay dib ugu soo laabanin. iyadoo wasaaraddu daba joogto arrintaas waxay safar ku tagtay dalka Faransiiska Paris bishii May ee la soo dhaafay ee sanadkan 2019 si ay uga qayb gasho shirweynaha 87 ee hay'adda caafimaadka xoolaha OIE taasoo haysa bixisana shuruudaha dhoofka xoolaha nool iyo waxa ka soo baxa xoolaha gaar ahaan shuruudaha caafimaadka xoolaha animal products waxaana halkaasi kula kulannay madaxa hay'adda caafimaadka xoolaha adduunka ee maaragtay fadhigeedu uu yahay Paris Monica Elliot waxaana si wadajir ah aan isla ogolaanay inaan si wadajir uga shaqeyno sidii loo hirgelin lahaa halbeegyada caalamiga ah international standards oo lagama maarmaan u ah dhoofka xoolaha iyo waxa ka soo baxa iyo hagaajinta kor u qaadida heerka maxjarrada xoolaha laga dhoofiyo ee Soomaaliya shaybaarada iyo guud ahaan caafimaadka xoolaha si looga hortago cudurrada loogana daaweeyo. haddaba waxaan halkan ugu soo jeedinayaa shacabka Soomaaliyeed xoolo dhaqatada Soomaaliyeed ganacsatada ciidii ku howlan arrimaha dhoofka xoolaha Soomaaliya in ay wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa ay ku guuleysatay in xayiraaddii dhoofka xoolaha ee Soomaaliya ee dalka Sacuudiga saarneyd in laga qaaday waqtiga xajka ah ee sanadkan 2019 iyadoo wasaaraddeena iyo wasaaradda beeraha ee dalka Sacuudigana ay noo socoto sidii guud ahaan looga qaadi lahaa xayiraadda
oo taasoo hadda meel wanaagsan noo maraysa dhawaanna aan idinla soo socodsiin doono. anigoo ku hadlaya magaca wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa, magaca dowladda federaalka ee Soomaaliya, waxaan halkan mahad ballaaran ugu jeedinayaa dowladda boqortooyada Sacuudiga ee aan walaalaha nahay ee uu hogaamiyo uu adeegaha labada xaram ee mudnaanta mudan khaadim al-xarameyn sharifeen boqorka Salmaan bin Cabdilcaziis, boqorka dowladda Sacuudiga. gaar ahaan waxaan u mahad celinayaa wasaaradda bii'ada, biyaha iyo beeraha dalka Sacuudiga oo runtii si aad ah nogala shaqaysay hawshan inay nala fuliso oo go'aankan qaraarkan soo baxay, isla markaasna diyaar u ah inay nagala shaqayso in si guud ahaan xoolaha Soomaaliya looga qaado maaragtay xayiraadda saaran, taasoo dowladda Sacuudiga ay tahay dowladda ugu badan ee xoolaha Soomaaliya dibadda u dhoofiso, in badanna Soomaaliya shacabkeeda meel alla meeshay joogaanba ka faa'iideysta dhoofkaas xoolaha, ha ahaato kuwa dhaqda, kuwa ka ganacsada, kuwa ka shaqeeya, intaba ay kasoo wada galaan dhaqaale marka uu dhoofkaas xoolaha u socdo. anigoo la qaybsanaya farxaddan shacabka Soomaaliyeed inta danaysa xoolaha Soomaaliyeed, waxaan idinka codsanayaa in aad nagala shaqaysaan horumarinta caafimaadka iyo halbeegyada caalamiga ah ee international standards ee la xiriira dhoofka xoolaha Soomaaliyeed, iyadoo danta gaar ah aan ka horumarinayno danta guud ee ummadda Soomaaliyeed oo ay noloshoodu ku xiran tahay xoolaha Soomaaliyeed. waana mahadsantihiin.